waxa isagu galka seefta kala baxay xubin ka mid ah NATO oo saaxiibtinimo dhow iyo u muujiyay taageero weyn oo markaasi runta ka hadlay waa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa mar dhaweytoole waxa uu si kulul uga hadlay markaasi dhibaatada weyn ee caalamka ku dhici gaadhay ammaan weyn buu u jeediyay markaasi Ruushka iyo madaxweynaha Ruushkaba waxa uu yiri waxay muujiyeen Ruushku hadda caaqilnimo weyn iyo maskax badan aad baan ugu mahad celinayaa buu yiri ammaan u dusha kala dhacay waxa uu sheegay markaa in wax markii mala awaala iyo daandaansi dagaalka saddexaad adduunka uu ku bilaabmi kaaray laakiin uu Ruushku ka odeeyay buu yiri waayo wasaaradda difaaca Ruushku xalay tolo waxay sheegtay yiraahdeen warana waxa shaqul kuma lihin kumanana ridin Poland moogtay gantaalkaasi ee waa daandaansi ay wadaan wadamada reer galbeedku iyaguna yiraahdeen Ruushku haddaba madaxweyne Erdogan ayaa waxa uu yiri hadalkii xalay tolo ay akhriyeen Ruushku waxa uu xaqiiqoobay waxaana maanta aan aad iyo aad ugu mahad celinayaa buu yiri in Ruushku caalamkii ka badbaadiyay dagaalka saddexaad adduunka caaqilnimo weyn muujiyay daandaansiga iyo waxa uu yiri markaasi dagaal roogida يعني waxay keeni kartaa khatar weyn caalamka ayuu keenaysaa sidadeed had iyo jeer in wax laga fiirsado oo lagu degdegin weeyaan buu wuxuu soo jeediyay markaasi wadamadii reer galbeedka uu sheegay inaan markaba yaacay isku soo yaacay kalka seefta kala baxay dagaalka galay yalla oran moogtahay waa in aqli lagu daraa buu yiri haddaba waxa yaab noqotay xulafada NATO ee imika Ruushka ay dirq ku kala badbaadeen Turkigu waa kamid oo ma saacada waxa dhici lahayd ba moogtahay in maadaama waa wadanka labaad ee ugu ciidanka badan leen xulafada NATO ee ku tiirsan tahay moogtahay NATO Turkigu dhinacan kale Ruushku waa saaxiibkii oo saaxiibtinimo weyn ba ka dhaxaysa oo moogtahay ganacsiga dhinaca hubka dhinaca yani cilaaqaad weyn ba ka dhaxaya xiriirkana uu gooynin Turkigu Ruushka waxaanu yiri markaasi aanu waxaan eegay danta guud ee caalamka dana waan ka shaqeynaya waa kan qamadigii caalamka u kala qaybinaya qamadigi Ukraine xayiraad saarnayd iyo moogtay alaabihii xitaa gaaskii Ruushka ayaa la keenay moogtay Turkiga waxa uu noqday centerkii moogtay caalamka kala qaybinayay ee u kala dhaxeeyay kooxan galbeedka iyo bariga dagaalamaya haddaba si kasta ha ahaatee waxa yaab noqotay oo marka ay hadda reer galbeedku la yaab yihiin wadanka kaliya markaasi waxa weeyaan xulafada NATO ku jira ee taageerada weyn u muujiyay Ruushka haddana amaan weyn u jeediyay waxaana uu markaasi uu sahin kari waayay baa leeyahay madaxweyne Erdogan oo waxa uu meesha uu muujiyay oo markaasi uu ka hadlay in Ruushka boogtay wixii xun baxaawale wax kasta oo dhacal in la yiraahdo Ruush baa leh yani ma aha buu leeyahay caalamkii boogtay ayuu gali gaaray burbur iyo baaba saadarteed in wax walba lagu degdega ma aha buu leeyahay waxaana uu muujiyay markaasi Erdogan inuu yahay madaxweynaha wadamada caalamka oo dhan imika isaga moogtay madaxweynihii caalamka Erdogan bariga galbeed buu dhaxaya wadamadii reer galbeedkana dhinac uu kula jiraa Ruushka iyo China dhinac uu saaxiib kala yahay isaga u talinaya marka caalamka saadarteed ayuu maanta u hadlay oo uu sheegay marka aad ugu mahad celiyay Ruushka oo moogtay ammaan dusha kala dhacay reer galbeedkana waxa uu yiri marka taxadar lagu daro wax walba moogtay in markaba lagu dhaqaaqo la rumaysta ma aha kuwa dambiyada iyo dagaalada oogayana markaasina la xisaabtamo weeyaan buu yiri inkastoo Ukraine toos u eedayn moogtay maadaama ay dhibana tahay oo dagaal ku socdo waa laga xishooday in la yiraahdo Ukraine ba isku dirka waday moogtay kelmadaas laga xishooday waayo waa dhibanay oo moogtay wadanka dagaalku ku socdo marka wixii ay moodo moogtay Itaal ay ku dagaalamaysaa iyadoo moogtay frustration cada xunba haysan moogtay maadaama wadanka quwadii adduunka power kale uu dhirbaaxo weyn ku hayo dagaal ku hayo cid ka qabata oo moogtay ma jirto marka waxa waa loo garaabaya moogtay waxa leeyahay Ukraine isku dirbay waday lama oranayo waxa weeyaan in la ilaaliyo nabadda weeyaan ayaa lagu soo koobay war saxaafadeed ay soo saareen xulafada NATO oo xogayaasha difaacu kulan degdeg ah ay yeesheen kadib waxaana la sheegay baadhis dheer oo mas'uuliyiinta Poland ay sameeyeen in lagu ogaaday gantaalka ku dhacay markaasi Poland in uu yahay horta gantaal Ruushka sameeyay gantaalkan oo iska lahaa laakiin yaa soo riday bay su'aashu ahayd waxaana la xaqiijiyay kadib baaritaanka waxa ay ku sheegeen in gantaalkaasi uu yahay gantaalaha lidka gala ee gantaalaha S300 loo yaqaan moogtay difaaca ee Ruushka uu sameeyo laakiin yaa riday waxa riday ciidamada Ukraine ayay yiraahdeen markaasi si ay uga hortagaan
gantaalaha uu markaasi ruushku ku harqinayay ilaa salaasadii ilaa xalay toole markaasi duqayntii uu ku waday Ukraine dhammaan goboladeeda oo dhan sidii ognahay duqayn xooggan buu ka waday markaa ruushku waxaana hadaba la sheegay in gantaalkan ay ciidamada Ukraine rideen bay yiraahdeen markaa sida ay mas'uuliyiinta Poland iyo kuwa NATO ay sheegeen ciidamada Ukraine baa riday bay yiraahdeen si ay uga hortagaan gantaalahaasi uu soo ridayay markaasi ruushku kadib gantaalkan hadaba ciidamada Ukraine ay soo rideen dhinaca Poland buu soo kacay markaasuu moogtay ku dhacay deegaan ka mid ah moogtay tuulooyasha Poland laba qof baa ku dilay hadaba si kasta ha ahaatee waxa iyadana xusid mudan in ay sheegeen mas'uuliyiinta Ukraine gaar ahaan madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa xalay toole waxa uu sheegay ilaa maanta uu ku doodayay in uu ruushku gantaalkaasi soo riday oo uu Poland duqeeyay waxaana uu waday markaasi olole xoogan madaxweynaha Ukraine oo uu lahaa imisa NATO idii sheegay ruushku kuma koobnaanayo Ukraine wadamada kale ee NATO weeraraya wadamada kale Yurub weeraraya imisa lahaa hoy ka kaca waxa maanta ba idii soo duqeeyay imika waa NATO ha kacdo يعني روشka waa inta laaba adag laga qaadaa dood noocaas ayuu waday madaxweyne Zelensky oo la xoogan baan u waday kaasi oo uu ku dhiiri gelinayeen xulafada NATO ay talaabo qaadaan oo ay Poland u hiiliyaan labada qof ee laga dilayna ay u argooyaan maadaama qodobka shanaad ee NATO yaala uu yahay haddii hal wadan la soo weeraro inay dhammaan garab istaagayaan marka Poland hal garab istaago ku doodayay madaxweyne Zelensky hadaba dad badan oo ku gala arrimaha siyaasadda iyo mas'uuliyiinta badan ee moogtay reer galbeedka ayaa badi shaki weyn ka muujiyay oo lahaa marka ma laga yaabaa inaanu ruushku ridin markaasi gantaalkaasi oo ay ciidamada Ukraine soo rideen maadaama meesha ay ka socotay dagaal ta kale waxa jira shaki xoogan oo moogtay barnaamijka hore ku sheegay oo ay wadaagayaan markaasi Mareykanka iyo Ruushku sirdoonkoogu madaxda CIA iyo kuwa Ruushku waxay ku kulmeen laba cisho ka hor Turkiga waxaanay markaasi doonayeen xog wadaagaan ku saabsan macluumaadka dagaalkaasi si aan madaxa la iskugu gelinin xulafada NATO iyo Ruushka oo ay iska ilaaliyaan wixii dagaalka saddexaad ee adduunka keenaya marka taxadar baa jiray maalmahan ba ay wadeen sidaa darteed waxa jira shaki weyn oo laga muujinay in Ukraine maadaama ay fed up taagan tahay oo moogtay xulafadii NATO ay la hadlaysay sanadku dhawaaday lahayd na soo garab istaaga no fly soo sameeyo hawada hala xidho ruushkana laga qabto idinka dartiin baa NATO hana loo dilayaa NATO ku biirayaan na soo garab istaaga madaxweyne Zelensky ilaa iyo February bishii labaad dagaalku bilaabmay ilaa iyo hadda qodbadii buu wadaa wadamada reer galbeedka leeyahay deena difaaca Mareykanka oo hogaaminaya markaasi xulafadaas iyo Ingiriisku labaduba way ka dhagaadeen waxay yiraahdeen anagu no fly soo ku sameyn mayno difaaca hawadaada la xiri kar mayno waayo ruush baan madaxaas la galeynaa caalamku wuu burburaya khasaare ka weyn ka imka dhacay ayaa dhici doona ka joog baa lagu lahaa moogta hadaba waxa ay keentay frustration bay ku qeexayaan moogta dadka siyaasadda falanqeeya qaarkood Ukraine marka iyada qorshahan degtay baa la yiri oo marka ugu tala gashay inay NATO dhaqaajiso waa furihii lagu dhaqaajinayay buu haba la yiri gantaalkan ay ciidamada Ukraine ku soo rideen markaasi Poland ee labada qof ay ku dileen maadaama ay moogtahay xulafada NATO dhaqaaq weyday oo ay Ukraine u hiilin weyday hadaba Poland ha u hiiliyaan bay sidaadeen gantaalkuna waa gantaaladii ruushku sameeyay S300 baaris dheer baa lagu sameeyay wala xaqiijiyay marka waxa weeyaan shaki kama muuqanayo halkaasi in uu marka ruush soo riday gantaalo badan uu soo riday oo Ukraine ku garaacay kuwii kamid ahaabay marka Ukraine ay ku doodaysay hadda waxa ay sheegayaan falanqeeyayaashu in qorshihii ay Ukraine wadatay oo fashilmay kaasi oo ahaa marka in madaxa la isku geliyo NATO iyo Ruushka oo culayskan uu Ruushku ku hayo ku mashquulsan yahay Ukraine in iska qaado oo ay jihaysay doonaysay baa la yiri maadaama sanad ku dhawaad hadda duqeyn ku hayo khaatiyaan bay istaageen